السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago ninkii Soomaaliga ahaa ee Saciid Cabdullaahi Ereg oo 4 maalin ka hor aan idinla wadaagay FBI-da Mareykanka inay dul dhigtay lacag $150,000 qofka soo sheega halka uu ku sugan yahay kuna eedeysnaa musuqmaasuqii Feeding Our Future ee gobolka Minnesota ka dhacay ayaa dowladda Mareykanka isku soo dhiibay. haddaba arrintaasi sidee ku dhacday ayaan idinla wadaagayaa. Airportka Minneapolis St. Paul ayuu ka soo degtay waxaana halkaasi ku sugayay FBI-da Mareykanka kadibna waa la xiray. arrintaasi sidee ku dhacday ayaan rabaa inaan idinla wadaago. madaxweyne Trump maantadii hore waa ka yiri Iran waan duqeynaynaa. arrintaasi waxaa sidoo kale ka hadlay wasiirkiisa gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth waxaana uu sheegay Iran luqadda bamka haddii ay doonayaan in lagula hadlo inaguna waan naqaanaa sida luqaddaasi loogu hadlo. madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale maanta ka dhawaajiyay in howlgalkiisii Project Freedom oo maraakiibta ganacsi marinka Hormuz ay ku soo dhaafsiinayeen militariga Mareykanka in ilaa iyo 100 milyan oo fuusto oo shidaal iyo in ka badan 200 oo markab oo ganacsi ay ciidamada Mareykanka ay marinka Hormuz soo gudbiyeen. arrintaasina wasiirkiisa gaashaandhigga ama dagaalka waa uu ku raacay waxaana uu yiri Hormuz inaga ayaa hadda maamulna oo dowladda Iran ma maamusho. arrimahaasi ayaan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaa. 4 maalmood ka hor waxaan idinla wadaagay nin Soomaali ah oo magaciisa la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Ereg taasi oo FBI-da Mareykanka ay ku dartay liis 8 qof oo musuqmaasuq ku eedeysan oo wadanka Mareykanka baxsad ka ah. liiskaasi oo ah nuuciisa kii ugu horeeyay oo la soo saaro ayaa waxaa la duldhigay dadkaasi lacaga kala duwan waxayna ku eedeysnaayeen inay xadeen lacaga kala duwan oo malaayiin ilaa iyo balaayiin u dhaxeeya. marka waxaa ka mid ahaa nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Ereg oo kiiskii Feeding Our Future ee ka dhacay gobolka Minnesota xilligii coronavirus-ka loogu talagalay cunto in la siiyo carruurta laakiin lacagtaasi la musuqmaasuqay ayuu ku eedeysnaa. haddaba khamiistii la soo dhaafay ayaa FBI-da liiskaasi ay soo saartay. xeraalyaha dowladda federaalka u qaabilsan gobolka Minnesota Daniel Rosen ayaa haddaba galabta shir jaraa'id qabtay. waxa uu sheegay Daniel Rosen in khamiistii markii liiskaasi FBI-du ay soo saartay dadkan la doonayo Saciid Cabdullaahi Eregna madaxiisa la duldhigay lacag $150,000 qofkii soo sheega halka uu ku sugan yahay in maalintii ku xigtayba uu Saciid Cabdullaahi Ereg uu la soo xiriiray FBI-da Mareykanka. kolley markaasi ma Kenya ku sugnaa mase Soomaaliya ku sugnaa ma uusan sheegin laakiin wuxuu yiri ka soo bixitaankiisii uu ka soo baxay Kenya ilaa iyo magaalada London ee caasimadda Ingiriiska oo transit uu ku ahaa iyo ilaa iyo uu ka soo degtay airportka St. Paul Minneapolis ka wada dhaxeeya magaalooyinka mataanaha halkaasi oo FBI-du ay ku sugaysay waa la soconay safarkiisa ayuu yiri. marka Saciid Cabdullaahi Ereg waxa uu ku eedeysan yahay lacag ilaa iyo 4.2 milyan oo dollar inuu qaatay dukaan uu lahaa oo la yiraahdo Evergreen Grocery and Deli oo ku yaala koonfurta Minneapolis ayaa waxa uu sheegayay in uu carruur ku quudinayay isla markaana lacaga fara badan ayuu qaatay intii u dhaxaysay Abriil 2020 ilaa iyo Abriil 2021 markaasi kadib markii la bilaabay marka in arrinta baaritaan lagu sameeyo oo dadka musuqmaasuqan ku lugta leh dacwada lagu soo oogo Saciid Cabdullaahi Ereg waa uu baxsaday. sida aan filayana kulley Soomaaliya ayuu ku sugnaa haddii uu Kenya ku sugnaan lahaa dowladaha Kenya iyo Mareykanka wada shaqayn ayaa ka dhaxaysa iyo isu soo gudbinta dadka dambiyada labada wadan ka kala galay. marka waxa uu Daniel Rosen uu sheegay in isaga keligii arrintan uusan samaynin xaaskiisa Najma Axmedna ay kula jirtay. Najma Axmed waxay dambigeeda qiratay bishii February ee sanadkii 2025 isniinta ayaa la doonayaa soo socota in xaaskiisa la xukumo. kolley qofku hadduu dambigiisa qirtana waa laga qafifiyaa xukunka kolley waan arki doonaa xukunkeedu inta uu noqdo. Saciid Cabdullaahi Ereg isagoo maqan ayaa dowladdu ay dacwad ku soo oogtay waxaana dacwadaasi lagu soo oogay 24 January ee sanadkii 2024 waaranti federaal ah ayaana loo jaray in la soo xiro meel kasta oo caalamka uu ka joogo. haddaba Saciid Cabdullaahi Ereg isaga ayaa isu soo dhiibay dowladda Mareykankana la soo xiriiray safarkiisana waxay dowladdu sheegtay ilaa iyo markii uu ka soo baxay Kenya London oo transit ku ahaa iyo airportka ama garoonka St. Paul iyo Minneapolis markii uu ka soo degtayna in FBI-du ay ku sugaysay halkaasina lagu qabtay baasaboorkiisina laga qaaday isla markaana la xiray. hadda marka kulley xilliga maxkamadiisu ay bilaabanayso ayaa la sugayaa ama in uu dambigiisa qirto
markaasi kadibna dowladda ayay ku xiran tahay inta sano oo lagu xukumayo. haddaba waa kan xeerlaaliyaha dowladda federaalka u qaabilsan gobolka Minnesota Daniel Rosen oo galabta shir jaraa'id oo degdeg ah qabtay markii ay Saciid Cabdulaahi Ereg airportka uu ka soo degay oo la qabtay oo la xiray kadib ayuu shirka jaraa'id qabtay sidan ayuuna u faahfaahiyey sida isu soo dhiibista Saciid Cabdulaahi Ereg ay u dhacday. I'm pleased to announce that this hour, Saeed Abdullahi Ereg, one of the FBI's most wanted fugitive fraudsters, peaceably surrendered to federal law enforcement officers who were waiting when his plane from overseas landed at the Minneapolis-St. Paul International Airport. Last Thursday, Vice President Vance announced that Mr. Ereg was one of the most wanted, and the following day, Mr. Ereg communicated his intention to return to the United States. FBI and HSI facilitated his travel from Kenya via London to Minneapolis. Mr. Ereg was indicted on January 24, 2024, and was a fugitive from justice since then. He's charged with conspiracy to commit wire fraud, and with money laundering. He exploited the federal child nutrition program during the COVID-19 pandemic, and he stole money pretending to be someone who was feeding children in need. Mr. Ereg owned and operated the Evergreen Grocery and Deli in Minneapolis, a business that participated in the program under the sponsorship of the nonprofit organizations Feeding Our Future. Between April 2020 and April 2021, he submitted fraudulent reimbursement claims and received more than $4.2 million in federal funds. At times, he claimed that his grocery and deli served over 3,000 meals twice a day, 7 days a week. Mr. Ereg didn't work alone. Mr. Ereg's wife, Najma Ahmed, worked with him and received payroll funds directly from Feeding Our Future. Ms. Ahmed pleaded guilty to one count of money laundering on February 24, 2025, and is scheduled to be sentenced here next week. dhinaca kale madaxweyne Trump waxaan ognahay maantadii hore mar uu aqalka cashir jaraa'id ku qabanayo inuu sheegay in Iran ay dib u bilaabayaan duqeymihii ciidamada Mareykanka ay ku hayeen. haddaba wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth ayaa isaguna shir jaraa'id waxa uu ku horqabtay xarunta saldhigga dhexe ee Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Tampa ee gobolka Florida. waxaana uu sheegay caawa Iran si adag inay u duqeyn doonaan. hadda magaalada Tehran waxaa la leeyahay difaaca cirka ayaa la howlgeliyay, qaraxyo ayaana la maqlayaa. marka lama oga meelaha la duqeynaya, laakiin dowladda Mareykanku sida Trump hadalkiisa laga dhadhansanayay markan waxa ay doonayaan inay duqeeyaan goobaha biyaha, korontada iyo sidoo kale buundooyinka. arrintaasi oo dambiye dagaal ah in goobaha kaabayaasha dhaqaalaha ee waddan kale aad duqeyso, arrintaasi waa dambiye dagaal. laakiin sida muuqata maadaama Iran hadda la xanuujin waayo, waxaa la doonayaa in goobahaasi laga xanuujiyo. wasiirka dagaalka ama gaashaandhigga ee Mareykanka Pete Hegseth waxa uu yidhi Iran haddii ay doonayso luqadda bamamka inaan ku wada hadalno si fiican ayaan u garanaynaa in lagu hadlo. haddaba waa kan wasiirka dagaalka Pete Hegseth oo xarunta saldhigga dhexe Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Tampa ee gobolka Florida horteeda kula hadlayay wariyaasha. If we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs, and we're very good at it. Nobody better in the world. Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu bartiisa True Socialka uu maanta ku soo qoray howlgalkiisii uu ugu magac daray Project Freedom oo bishii hore uu ku dhawaaqay in si qarsoodi ah ay ciidamada Mareykanku ay u wadeen. howlgalkaasi waxa ay muhiimadiisu ahayd maraakiibta ganacsi ee ku xaniban ama kuwa doonaya inay maraan marinka Hormuz in ciidamada Mareykanka ay si xooga ku soo marsiyaan amaba ay soo galbiyaan. Trump waxa uu sheegay ciidamada Mareykanku howlgalkaasi si qarsoodi ah inay u wadeen.
waxayna soo gudbiyeen in ka badan 200 oo markab oo ganacsi oo siday shidaal gaaraya 100 milyan oo fuusto oo shidaal ah. waxaana uu sheegay arrintaasi inay tahay arrin muhiim ah. haddaba wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka ee Mareykanka Pete Hegseth oo shirkiisa jaraa'id galabta markii uu qabanayay arrintaasina ka hadlay ayuu yiri madaxweyne Trump maanta arrinta uu ka dhawaajiyay oo warbaahinta inta badan aysan ka warqabin laakiin ciidamada Mareykanku ay ka warqabeen ayaa waxa ay tahay uu yiri in howlgalkaasi Project Freedom uu si qarsoodi ah u socday. ciidamada Mareykanka ee jooga marinka Hormuz agagaarkiisa ee go'doominta ku haya Iiraan ay si qarsoodi ah maraakiibta ganacsiga ee shidaalka sida iyo kuwa waliba badeecadaha kale sida inay si qarsoodi ah ay ku soo marsiinayeen marinka Hormuz. marka wuxuu yiri yaa maamula marka hadda marka la eego marinka Hormuz inaga ayaa maamulna ayuu yiri oo dawladda Iiraan maba maamusho. waan arki doonaa dawladda Iiraan haddaba arrimahaas waxay ka tiraado. waxaana uu sheegay in ciidamadoodii badda kuwoodii cirka iyo gantaaladoodii difaacaba ay baabi'iyeen sidaasi darteed hadda marinka Hormuz waxaa maamusho ayuu leeyahay dawladda Mareykanka iyo ciidamada Mareykanka ayaa maamula. waa kan mar kale Pete Hegseth oo arrintaasi ka hadlay. There's another thing that was revealed today by the president that the press has not been aware of, but is that Project Freedom, the idea of running ships through the Strait of Hormuz, it never stopped. It just went underground. And so there's some things the public knows and some things the public doesn't know. But ultimately, we've been protecting commercial shipping going through the Strait of Hormuz, as the president announced, to the tune of over 100 million barrels that have moved through and more in the middle of the night, protected by the United States in a way that Iran can't stop. They can't see it and they can't stop it. So answer me this. If our blockade is ironclad, which it is, we just disabled another tanker attempting to leave just yesterday. Our blockade has stopped almost 140 ships attempting to navigate in or out to Iranian ports. So if our blockade is ironclad, which it is, and we're able to move commercial shipping in and out of the Strait of Hormuz, who controls the Strait of Hormuz? And President Trump said it, and he's right. The United States of America controls the Strait of Hormuz. We're able to bring oil in and out and other things with partners, and have done so now for weeks and weeks in ways the Iranians don't want to acknowledge. haddaba waan arki doonaa dawladda Iiraan sida ay uga jawaabto arrintan sheegashada ay dawladda Mareykanka ay sheeganayso in iyagu marinka Hormuz ay maamulaan oo ay gacanta ku hayaan cidii ay rabaan ay soo gudbinayaan cidii ay rabaan ay u ogolaanayaan in ay gasho. arrintaasina saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa wadahadaladii madaxweyne Trump uu ku celcelinayay in loo dhow yahay in heshiis la gaaro saameyn intee leeg ayay arrintaasi ku yeelan kartaa. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.